kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo aqoonkaal oo aad ka daawataan shaashadda muuqaalbaahiyaha SBTV. maanta barnaamijka intuu soconayo waxaad ku daawan doontaan munaasabad ay ku qalin bedelanayaan in ka badan 100 arday oo bartay xirfadaha muhiimka ah suuqa shaqada sida xirfadda graphic design-ka, IT-ga iyo kuwa kale oo muhiim u ah ama muhiimka ah suuqa shaqada. ardaydan ayaa ka qalin bedelanaysa Himad Academy for Science and Technology oo kamid ah macaahidda soo saarta da'yarta doonaysa in noloshooda ay wax ka bedelaan intan qoyskooda. barnaamijku intuu soconayo khudbadaha kala duwan ee munaasabadan laga jeediyay oo tan maamulaha Himad Academy ugu horeeya ayaa daawan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku daawan doontaan ardayda ka aflaxaysa macadkan oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka muuqaalbaahiyaha isla markaana wax ka weydiinay dareenkooda iyo sida u arkaan maanta dadaalkii ay muddada dheer soo muujinayeen inay ka miro dhaliyaan. adduunka maanta sida degdega isku bedelaya rabitaanka horumarinta shakhsi ahaaneed iyo xirfadeed waa safar aan dhammaad lahayn. haddii aad raadinayso inaad horumariso xirfadaada oo aad ku raad joogto sidii aad guul uga gaari lahayd sar u qaadista kobcinta xirfadahaagu waxay door muhiima ka ciyaaraysaa gaaritaanka yoolkaaga waxayna taasi kuu sahlaysaa in aad ka mid noqoto dadka noloshooda iyo tan qoyskooda wax ka bedela. Soomaaliya oo sanad waliba goobaha waxbarasho ku yaala gaar ahaan jaamacadaha ay ka soo aflaxaan kumanaan dhalinyaro ah ayaa waxay la daaladhacayaan fursad yari ka jirta suuqa shaqada taasi oo inta badan lagu dhaliilo jaamacadaha ku yaala gudaha dalka inaysan ardayda ay soo saarayaan barin xirfado ay suuqa shaqada noloshooda kaga maareyn karaan ama ay ku shaqo tegi karaan. Himad for Science and Technology oo ka mid ah macaahidda ku yaala gudaha dalka oo ka duulaya baahiyaha loo qabo in sare loo qaado tayada dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa in noloshooda ay wax ka bedelaan ayaa kaalintiisa ka qaatay baridda iyo fahamsiinta dhalinyarada xirfadaha kala duwan ee mar waliba suuqa shaqada lagaga faa'iideysan karo kuwaasi oo kala culumta kombiyuutarka, graphic design-ka, muuqaal samaynta iyo kuwa kaloo badan. da'yar badan oo ka waxbarata iskuulada ku yaala Muqdisho iyo jaamacadaha dalka ayaana Himad u tagay sidii noloshooda ay wax uga bedeli lahaayeen isla markaana ay u baran lahaayeen xirfado sare u qaada aqoontooda. xirfadu waa dhismaha aqoonta iyo waayo-aragnimada waxay awood u siiyaan shakhsiyaadka inay ku fiicnaadaan xulashadooda ay doorteen oo albaabka u furaan aragtiyo cusub. haddaba munaasabadan ay ku aflaxayeen ardaydan xirfadaha kala duwan bartay isla markaana waqtiga dheer u jarmaadaya Himad balse maanta natiijadooda ka dhabeeyay ayaa gaaraya ku dhawaad 100 arday oo isugu jira hablo iyo wiilal. waxaana madasha munaasabada farxadooda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira barayaal, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn madasha waxaa ka hadal jeediyo mikrofoon ka qaatay qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay iyo barayaasha wax ka dhiga Himad kuwaasi oo si isku mid ah u bogaadiyay guusha ay gaareen da'yartan iyo maamulka Himad uguna baaqay in ardayda Soomaaliyeed ay sare u qaadaan barashada xirfadaha si suuqa shaqada fursado kala duwan ay uga helaan. mahad alle kadib marti sharafta kala duwan ee halkan joogtay ugu horeeyay maamulka macadka iyo ardayda qalin jabinaysa waalidiinta quruxda badan sidoo kale halkan joogta aadaan ugu mahad celinayaa saaxiibka Ustaad Maxamuud iyo macallimiinta kale oo iyaga laftirkooda iskuulada ka socda aadaan ugu mahad celinayaa. intaa kadib waxaan aad ugu hambaleynayaa ardadan dhalinyarada ah waxaa jiray dhaqan ahaa beri skillska noocaan ee hadda maanta ardadu ay ka qalin jabinayaan dadka waaweyn inay bartaan ardada jaamacadaha dhigata iyo qof jaamacad ka baxay iyo meelaha dadka ay dhigtaan. laakiin wajiyada halkan ka muuqdo waxa u maleysaa inay aad u da'yar yihiin runtiina waa wax lagu farxo. marka Ustaad Cabdixakiim iyo aragtida iskuulkan iyo xirfadahan waliba in lagu dhigo si baan u bogaadinayaa inaad si laba jibaartaana waxa waaye waa rajaynaa hadduu Ilaahay yahay. waxaan rabaa khudbadayda inaan ku soo koobo laba dardaaran oo aad u gaar ah. dardaaranka kuwaad waxa weeyaan sheekadii Ustaad Maxamuud uu sheegay Ustaad Kobacna uu bilaabay ahayd
adduunyadu halkay u socoto hal la aadaan raba sheeko ah iyada inaan idiin sheego. ma garanaysaan intaan la soo saarin gawaarida wixii ugu dheeraaye gaariga ka hor la isticmaali jiray? ma garanaysaan ugu dheereeyey xawaar ahaan la isticmaali jiray muxuu ahaa? fardaha sooma. marka waxaa jirtay sheeko caan ah oo laga dhex sameeyey markii fardaha iyo gawaarida isbeddelkaas markuu dhacayo. kambeni caalam marka waxaa jira Maraykan ku yaalo Ford la yiraahdo, ninka asaasay loogu magac daray. marka wuxuu ahaa kambenigii u horeeyay oo gawaari soo saaray. inta uu aan gawaari soo saarina waxa ugu xawaaraha dheereeyo la isticmaali jiray wuxuu ahaa faras. marka waa la weydiiyey waxa la yiri aragtida ah inaad gaari soo saarto sidee bay ku dhalataan? wuxuu ku jawaabay dadka igu hareeraysan oo dhan waxay ka fikirayeen faraska ay haystaan xawaarihiisa say ku kordhin karaan. faras xawaarihiisa lagu kordhin karaa tababar in la siiyo nutritionkiisa laga shaqeeyo sooma taa un bay ka fikirayeen. laakiin anigu wuxuu yidhi sheekada dhinac kalaan ka eego waxaan isweydiiyey horta faraskan lagu daalay wax ka dheereeya ma la heli karaa? marka wuxuu yidhi dadka aragti ahaanaan anuu ka horreeyey maana wax kale ma jiro. walidaalika waxaa la yidhahdaa dadka adduunyada isbedelada keena oo nolosha horseedka ka noqda waqtiga markaas ay joogaan waxaa la yidhahdaa kuma noolaa la yidhahda. 2024 buu joogaa laakiin wuxuu dhisayaa mustaqbalkii ama noloshii 2023 buu dhisayaa. waxa waaye waxaa laga yaabaa inaan la'ahay erey ama hadal aan ku qeexo dhacdadan aadka aadka qiimaha badan oo bilowgeeda ilaa iyo dhammaadkeeda aan aniga ka ahay markhaati weyn aan ka ahay. marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dhammaan ardayda maanta ka qalin jebinayso ama dhammaynayso xirfaddan aad iyo aadka muhiima waxaan leeyahay hambalyo, waad guulaysateen, waxaad samayseen dhowr adeeg. way fududahay in la bilaabo barasho ama wax la barto, laakiin in la dhammeeyo dhammaadka in la geeyo ayaa aad iyo aad ugu adag. marka waxaan rabaa inaan laba shay macnaha ku daro oo muhiim ah oo aan macnaha dhammaanteen inaan isla fahanna ay tahay. marka waxaa waaye sida akademiyada magaceedu uu yahay for science and technology. nolosha maanta casriga ah haddii la fiiriyo waxay kusoo gabagooday ama kusoo dhammaanaysaa science and technology oo papers and certificates. technology science ay kusoo dhammaatay markii lala fiiriyo warqado iyo shahaadooyin iyo waqti dheeraay oo waxbarashada lagu qaadan jiray formulka ay ilaa iyo 12 sano. marka ardaydan maanta waxaan ugu bishaaraynayaa in ay fureen fursadihii shaqooyinka, albaabka shaqooyinka inay furteen maanta rajaynayaa. sababtoo meesha waxaa ka baxayso culaysihii shahaada wataa dugsiga jaamacada dhameeyey masar PhD anahay shaqaan raadinaya. marka meesha waxaa waaye waxaad ogaan doontaan insha allahu tacaala barashada computerka iyo xirfadaha hadda idin raacday oo graphic designka iyo video editingka waxyaalaha ugu degdegsan oo qofka maanta markuu xaalka xawaasi uu arkaado inuu ku cararo ay tahay. waaye lama sheegin qof xirfadahan oo shaqalaanay maanta magaalada xamar waa la raadiyaa. marka ardaydan maanta ka qalin jebisay xirfadaha video editingka iyo graphic designka iyo barashada computerka waxay macnaha fureen albaabkaasoo saacidayn doono in ay ciladihii jiray iyo marmarsiyooyinkii tirada badan la akhrin jiray inay ka baxaan. waan inay hambalyaynayaa. marka fursadaha adinka ahaysiin maybe waxaa laga yaaba annaga inaan heli jirin, annaga aan kusoo gubannay systemka aad u adkaay. warqado tiro badanna inaan isla wadan waa laga yaabaa culaysad, laakiin maanta ay iska jiraan. laakiin wuu dadaalay weliba maalintii uu fikirkaan kusoo dhacayay tiimkii ka agdhawaay ahay aad uga agdhawaay oo ku gormoodgeliyey isigoo jooga madbacadda iyo in maaragtay iyo baahidan deegaanka way ka jirtaa. cilmihii qaarkood dugsi sare ka soo baxayaan, qaarkood dugsi dhexe waayo, maada cilmi technologiga lagu soo daray. sidee loo horumariyaa marka dadkii maaragtay maalintaas fikirkaas
يعني أدك معرتي سؤوي وأنا مهدينا عملت إنتان وأرضي والدين يتكسر قيب قلام حفظها معرتي كيف يستاهل حرب أمريكا حرا وأنا كويا ديرانا قال هذا وحاولتان شركتها تكنولوجيا كشقيو oo xayisiinta ugu badan maanta yani suuqa xayisiinta waxa ugu badan ay isticmaalaan waa graphic design barnaamijyo kale way jiri karaan laakiin mostly waa graphic design haddaad fiirisid marka productivity levelka ama shaqaalaha ugu wax soo saarka badan da-doodu waxay u dhexaysaa 15 sano ilaa 22 sano u dhexaysaa fiir hadda sanjadtag haddaa border daawacanaysa designis kulug yaraa fadhiya computerka oo ku design garaynaya adoobaha ku hagaajinayo wax dhan kuu sameynaya marka waa wax lagu farxo adduunyada sideedaba cilmiga meel maanta meesha uu joogo berri ma jooga waxaa laga yaaba 10 sano ka hor meesha joogo inuusan maanta joogo cilmiga maanta dadkan ay ka qalin jebinayaan waa acmaal yadawiya ama يعني جهاز كان ليه كمبيوتر يعني باهي لو قبل باهي وين ورنتي عالم كمان تحتاجي هاي قفك عن كمبيوتر قرنين يعتبر أنه جاهل وحاله يعني لو جاي ليك عن ما أنت قرنين فمثلا آلتنا ليه أما جهاز كان كمبيوتر كان كسرين وجاهل لماذا في جميع المجالات الحياة نوشي يومين قلي يعني هذه الشغل الربو فمثلا مركز شغل راسه وحكاسه وريا متقانا جهاز كاس متقانا أما الكمبيوتر كمتقانا هذه اسمها لنا يتهاي هذه يتهاي فمثلا سكولة دي وقال جامعاتك وقال مركب على الأول ذباهي هاي مركب حالنا هاي أرضي ما أنت سوق الجبسي وعادي كل رجال لنا لبشي كو إن التعليم تسي ودان أو فمثلا تعليم تأسي ودان لبو حنكلو يدو كل رجال لنا إن عاد فمثلا عيدك أنا فمثلا يعني علمي ماشي هذا فنانين او اسيس عتان marka insha Allah ta'ala inkastoo warka la soo gaaro leeyahay cilmiga waxa ka soo horjeeda al-jahl jahilnimada meel lagu amaanay male quraanka iyo ahadiisa meel lagu amaanay malaha marka jahliga waa sumun qatil farxada ay tahay inaan joog maanta aad iyo aad faraxsanahay Abdixakiin anoo garanayso waxay وحير معلنا نو إمام أنا وقرين أنا التلفون كقفتي هذا مركو أولك سجل غير معلنا عبد الحكيم أنا جوا مركو عبد الحكيم آدي أنا فرح سنة هاي رنتي يعني لين أنا يراها الشغلات يقف شغلات في عمره وعكروا أدو فرحي إن ماشي يراها الجوان أدو داير أورنتي فهمي دورتي نلاش ماشي أسعد ما أنت adduunka meesha u socdo inaad fahanto waa laga maarmaan haddii aad rabtid inaad horumar gaarto haddii aad rabtid inaad facaaga aad la mid noqotid haddii aad rabtid in waalidka ay ku duceeyaan oo inaad fahantaa meesha adduunyada u socoto adduunyada u socota maanta waxa la yidhaahdo technology aadaan u faraxsanahay dhamaysteen computerkii iyo multimedia disaankii inaad barateen wax aad u fiican waay mararka qaarkood waxaa dhici karta adoo gurigaa joogo inaad shaqaysatid aad u baahneen inaad shaqo aado laakiin markii aad baratid waay oo laakiin aysan ka ahayn ciyaar ay ka ahayn inaad doorato oo waqti aad siiso oo xirfadda maanta ay ku bilaabeen macalinka uu ku bilaabay iskuulka himad uu ku bilaabay inaad ku sii dardarto oo wax badan aad ku samayso marka waxaan idin leeyahay hambalyo 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 صاحبكي عبد الحكيم مركو يصوعي ويري وحاكو وحسوما يا حفلة أرضي قلن جبينيسو وحان ويديا محيك قلن جبينيان مركز بوحي ويري برشاد الكمبيوتر كان يو اي تي كما دوين كقصير أدبان أفرحي وأنا كصاحب قلي أيام كل هاي سببتها مادة داسي ومادة أنيقى السيجار سامي وين يقوله مددرنا نلوشي دي كميدة هاي ووقتي قابو قابن يحي وحان ربا إنا تسير أو لابد دقيقة صعونيسو إذن كلو سوكولو سيدي نولوشي دو ساميسي إذن كان أي صورة قلو تهين إذن سامين دونتو
anigoo yar dugsiga qur-aanka dhiganayo oo saan filayo jallaadka labaad xataa ma gaarin aan filaya xilligaasi ayaa adeerka intuu soo waday ayuu wuxuu ii geeyey nin deriskeena ahaay oo xilligaasi dadka bari jiray taybinka ama makiinada taybinka hadda saan filaya makiinadaasi suuqa ka ergooda filayaan cabdirashideey waa laga yaabaa in hal iyo laba aad ka heshid aniga xilligaasi ma fahansanaynin ahmiyadda ay leedahay iyo waxaan waxay yihiin iyo siday nolosheeda wax uga tari doonto mustaqbalka balse wax cusub ayay ugu ahayd waana xiiseynayay sidii ayaana bacdulmaqrib markii dugsiga kasoo baxo tagi jiray sida makiinada shanta furood loogu garaaco lay bari jiray markii cabaar waday koorsada meel dhexe ii marayso ayaan ka yara caajisay waan iska dhaafay kadibna waan u gambiyey markii dambe sidii aan faraxa uga qaaday muddo 10 sano kadib markii aan jaamacadda ka qalin jabinayay anigoo magaalada Nairobi joogo ayaa yar saaxiibkay meel cyber cafe la oo ka shaqeynayay anigoo la fadhiyo ayaa qof soo istaagay kadibna wuxuu yiri warqada ayuu keensaday wuxuu yiri hala ii type garay ama hala ii garaaco yarkii wuxuu yiri hawshaas ma qaban karno waxaan aniga hawshaas aqaanay kaadi waa u qabtay waa u garaacay waa u qurxiyay waa u daabacay ninkii lacagtii aan kula heshiiyay lacag ka badan ayuu siiyay meeshaas waxaa iga soo baxday shaqo abuur yar ma filanaynin xilliga dugsiga quraanka dhiganayay wax aan baranayay inay markaas 10 sano kadib aan filan doono marka meeshaas in fursado kale ayaa iga sii baxay oo meeshii shaqo ayaan ka helay ilaa heer markii dambe cyber cafe-ga aniga manage garayo muddo 2 sano marka alxamdulillah waan ku soo liibaanay idinkana waxaa laga yaabaa hadda inaadan fahansanaynin xirfadaha aad baranaysaan siday noloshiina u saameyn doonaan marka koowaad iyo marka labaad waxaan u hambaliyaynayaa dhalinyarada quruxda badan ee ka qalin jabisay akademiyada Himat si gooniyana waxaa ugu hambaliyaynayaa Cabdixakiin sababta ugu hambaliyaynayaa waxay tahay aniga xaafadda uu ka furay haduu meel kale ka furi lahayd qiimo gooni iyo malahaateen wuxuu soo koriyay sax laakiin meesha uu ka furay hadna qiimo u sii yeelaysa sababta bariga anigu baranayay computerka أنا حافظة دقبة حوالي شري لا دالو لو بس بقصي راعي شري مركز جانس بدني لو باتشي وقرش كودي ولو يري فرصة بدن ما دام حافظة حافظة كله تهاي يكون يريهم جوابه هذا وحبر الشدة أدحكين سجوني ومهتسين هاي وأنا قرني يا سفي عنا وخانة كورسوين بدن مهمة ماشي عن كم وغضة أنا قدين عن communication كي وحياة واسان كهولة مجالات مركان كتيرو سجوني وح يكون قدير قلني على يرو إن هذا communication كأد جود عشان وحياة الحريرة haddii noqoto video editing-ka kaamirada yara hadda wada shaqeynaa wuxuu ka shaqeeyaa qaybteena boosterada uu qaabilsan yahay ma malayn kartaa 5 qolo kale ugu shaqeeya boosteradaas computerkiisu meel la fadhiyaa qolo walba waxay leedahay boosterka soo sameey uma baahnaba inuu kaco uu sameeyaa uu diraya marka waxyaabaha ugu muhiimsan waaye waxaan kale oo u hambaleynayaa marre taxliil gabdhuhu waa yar yihiin markaas waa iimaad darada laakiin hadda aad ila badan yihiin gabdhuhu waa badan tihiin maasha Allah hambali ay idin la si gooniye gabdhihii kale guriga uga soo tagteen oo cashooyinka karin jiray marka idinku soo bixisaan inaad chance ka siisaan jeenaya markaan si gooni waxa uu hambaleynayaa caruurtayda Cabdullaahi Xugun oo meeshaan markay guriga computer badanaya anigu saas uma aanay qiimeyn waxa islaam meel dhexe uga heri doonaa laakiin hadda markii aad dhaxkini ayagu biyo sheegay in qalin jabintoodii tahay waa ku farxay mar kalena ayagu hadda waa qalin bedelaysan qalin jabin ma way si soconaysaa sababtoo taa koorsooyin badan oo muhiim ah meeshaan ka muuqda video editing oo kale waa xirfadda magaalada hadda ka jirta qofkii carwo ka furta centerka magaalada ama mall yar soo kordhiyo wuxuu baahan yahay cameraman poster jimco kasta iyo khamiis Soomaaliya arkay qiimo dhimisada la sameeyo qofka waxaas ku shaqeysto lacag u qaata marka xirfadaha ugu muhiimsan waa waxyaabaha computerka la xiriira idinkuna waa sii wadi doontaan insha Allah xirfadaha u soo horeeyay doontiin waxa kamid ah waxyaabaha suuqa looga shaqeysto dhamaantiin waxa idin leeyahay hambali dhalinyaro waxaan la maanta inaan hambaliyo ardayda qalin jabinaysa iskuulka Himat oo baratay maadada computerka iyo waxyaalaha la xiriira saacadii muhiimada jahdiga juhdi badan xaqiiqatan inuu ardaydan ka dhiso waxyaabo kala duwan sida maadada computerka waxaa barto inuu baro graphic site waxyaabihii kale marar badan xiriyaha ku dhawaajiyay inuu ka shaqeeyo qayb mawjudi laakiin waxaan leeyahay Himat intaas kaliya kama shaqeeyo sidoo kale wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo wali marka sida preparation-ka oo diyaariyo isku kan waxa lagu taa maadooyin kala duwan sida maadada xisaabta English-ka Carabiga iyo maadooyin luqadana hooyada Soomaaliga oo ardayda baro qorista iyo akhriska ardayda waxaan ku kaalmeynaa xaqiiqatan waxyaabo badan sida in aan ardayda caawino inuu hadhoodii markii oo iskuul u baahdo inuu ku
inuu yaqaano sida wax loo qoro ama loo aqriyo inuu u fariisan karo galaas oo u qalmooda ahaan inuu leeyahay aqoon ku filan sida loo tartamo ardayda dhigiisa oo kale intaas kadib iskuulku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo qorshayaashaas oo insha allah tacaala hadda aan u dhaceyn laakiin soo socda ardayda mar walba waxa ay ka dhaxlaan iskuulka inaad akhlaaq kartay iyo weliba aqoon heer sare ah. intaasi kadib waxaa mikrofoon ka qabsaday qaar ka mid ah ardayda ka waxbarata himad oo oraah ammaana u jeediyey maamulka iyo macadka himad. كل هذا بنهم برشالة ما شاء الله وسوسته ما يروح كلام كلام كيا هذا نقول بالوقت حيد عيسى سدتن هم لولا أنت هركن ما أنت تشوفيه هل كان سوى مجارين معلمين هيجم كوا هبين يا دراتي هم البالغ هلاي هم بلي صعب خلوتهم horumarkaaga wacaniyo heerkaad maanta joogtaa rabbi baa kuu hibeeye halee himaday waxaa soo saartaa halyey qaran halkiisana haysaa hormuudkeeni baa tahe weligaa halkaa joog aqoontii iftiinkiyo edabsamaano hadalkiyo abaawilka guusheena himad baan ka helno hibad maan ka hayno higsigeennii himiladeennii waanu haleelnay himadee ha mudan ciil maamuus haddii la rasuulaya magac laleeyahay masar hadday darajasar cilmigiyeysa qof mudan mudan loo tirgeliyaa muusade inuu yahay macallinkii laga muqsiino ustaad cabdilkiin cabdiyo taala misaan muhiimeen mana laga taageen maankii wuxuu kordhiyaa maskaxda guri malaayiin dad buu soo karshaaya muraayadooda barbaarta halkii midale malka u guurshaaye eedaa madaxweyne dijiin weynaaye himad waxay ugu tahay bulshada wanjile alla himad moodaa waxaana leeyahay himad waa halkii iftiinka ardayda maanta meesha fadhiyo soo saartee himad alla moodaa ustaad cabdilkiin cabdil waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay. dhankiisa maamulaha himad ustaad cabdixakiin ayaa ka warbixiyey muhiimadda himad ay u leedahay soo saarista jiil ku tayeysan xirfado kala duwan si suuqa shaqada ay uga helaan fursad muhiim u ah noloshooda. waxaan isleeyahay wax walba oo xafladan laga sheegi lahaa in la dhameystiray aniga waxaan isleeyahay xoogaa kastoo yar waxbaan isku soo diyaariyey waxbaan isku soo toosiyey laakiin wixii oo dhan waa la dhameystiray ustaad cabdiladiif macalin kobac maxamuud ustaad xuseen ustaad maxaa la yiraahdaa maxamed ciise wixii oo dhan waxaad u malaysaa in la soo gabagabeeyey wixii aan sheegi lahaa bas ay sheegeen waxaan isleeyahay midda keliya oo aan anaga ardaydaas ku qanci karno oo aan ku dhiirigeli karno hal qodob aan isleeyahay meeshaas ee laga tegay oo ka tilmaamsanaysa ustaad maxamuud aana dafo qodobkaas waxa kale ma uusan ahayn dadaalkan iyo juhdigan la sameeyey haddii uusan ardaygaas iskoolka imaan lahayn uusan soo xaadiri lahayn waxaan isleeyahay wax soco lahaa iyo wax hagaagi lahaa iyo xafladan quruxda badan ee meeshaan ka dhacaysa ma aysan loo hagaagteen awalan waalidiintii shidaalka kusoo shubaya number kow aan siinayna ardaygii soo dadaalay ee imaaday ee dhahay maxaa la yiraahdaa waxaan u baahanahay inaan wax barto tiknoolajiyadda casriga inaan wax ka bartaan u baahanahay asagna u mahad celinaya intaba inteena meeshaan fadhiso ilaa martideenna oo maanta laastigeenna xafladeenna gabagabadeeda nooga soo qayb galay naguna dhiirigeliyey muhiimadda ee tiknoolajiyadda sanadan waqti xaadirkan ay leedahay nagala soo qaybgalina waan u mahad celinaynaa intaas maadaama mahad celintaas aan la soo waxaan aniga idinkugu darayaa ustaad maxamuudna uu ka dhawaajiyey in ardaygan fiiri saad waxyaala la yirahdaa jir maanta haddaadan basraac wadanin magaalada meel aad u dhaqaaqaysa malaan haddaadan lugtaada ku caanamaalaynin ardayda waxyaalaha ugu badan ama ciladaha ugu badan ee ka haysata ama graphic ha barto ama video editing ha barto ama computer ha barto cilada ugu weyn ee qabsanaysa maxaa waa wixii uu bartay laakiin ku camal falki ma laha marka waalidiinta aad ku qiimaha badan ee xafladan nagala soo qayb galay ee caruurtooda aad ku faraxsan xafladan quruxda badan loo dhigaayo waxaan leenahay xafladii way dhacday laakiin ardaygan hadduu meesha ka tagay hadduu ardaygan meesha ka tago waxaa loo baahan yahay inuu cilmigii kusii guda jiro cilmigii haddii la rabo inuu sii haayo oo gacanta kusii haayo la rabo ammaanteennana ay sii dambeyso
ammaanteena waxaan isleenahay welima aysan dhicin sababtoo ah ardaygeena oo shaqeeya ardaygeena oo magaalada door muhiim ah ka qaata ardaygeena oo iskuulkan ka qalin jabiyey oo taalanta leh markaan arkayno waa arday tiknoolajiyadda kusii baraarugay maadaama inta badan ay u badan yihiin arday aad u da'yar oo aan isdhihi karo waqti badan haddii la siiyo oo maxaa la yidhahdaa tasiilaadkii ama sublieski maxaa kombiyuutaradii iyo waxyaalahaas laga dhamaystiro ay heli karaan awalan ilaahina ugu mahad celinayna xafladeena aad ku quruxda badan sida jawiga degan ayadoo lahayn wax maxaa la yidhahdaa protocol ah si jawi degan aan isku dhagaysanayna noogu dhameeyana fillahi alxamdu waaye midda labaad waxaan rabaa inaan taariikhda iskuulka wax yar oo kooban ah idinka dhaho sida inta badan saaxiibadii ay ka wada dhawaajiyeen iskuulkan markaan aasaasaynay waxaa jira waxyaalo oo macnaha aan maxaa la yidhahdaa aan ka dhiganayo shidaal oo kaleeto waxaa kamid ah dadkan aadka u qiimaha badan qaarkood aad ujeediin meeshaan fadhiyaan oo aniga si qaas ay garnahaan markaan warbixinta u keenay waxaa dhici karta in barnaamijkii adiga aad rabtay oo qofku dhaho niyo waxaa suura ma galayaan meeshaan wax ka dhacaya ma laha qofkaasoo kale maxaa waay waa recorda samaysay research marka la sameynaya maxaa dareemaysiin waa 100 qofood oo inta su'aalo la weydiiyay la dhahay waxaas cudurkaas kadibna intii ugu badnaan la dhahay cudurkaas qaabkaas oo ugu dhaca dadka maadaama dadkaas intii badan aan la tashtay oo aan dhahay barnaamijyaadkaas aan rabnaa inaan ka aasaasno xaafadda Hanta Dheer iskuulku wuxuu ku yaalaa Hanta Dheer meel aad u wada garanaysiin waa badantiina inta hadda nala joogta dadkii waxa waa shidaalkii ugu siiyey in meeshaas iskuulka laga aasaaso u baahan yahay iskuulka ka aasaas meeshaas cabdixakiim wuu dhaqaaqaysaa doorabid insha Allah annagana waxaan sameynay waxa waa rabbiyan tala saarnay shaqadiina waa guda galnay waxaana ka imaatay wajiyadaas quruxda badan ee maanta la hor fadhiya ee naga mudan 10 saac inaan siino hal mar aan ugu saacadina ardaydaas aad ku qiimaadaan maanta wax kale ma dhahin inta soo istaagtay maxay dhahin hambaliyo dadaalkiina hor u sii wada meeshii koowaad ka bilowdeen maxaa la yiraahdaa aamino waxay dhahday talaabtii koowaad qaadeen jaranjaradii koowaad korteen qaarkiin waxa laga yaabaa sideedaad hadda inay ka baxayeen maadaama talaabtii koowaad ay qaadeen dhamaystirkii ayaga uu sugaa haddii aad adiga ka jiifatid ma xusuustay yarka maxay qofka dhahay waxaa jira qof dhahay macalinka uu ku taabsiinaa barnaamijkan ha ka sugin macalin waxaanu faahfaahsan ku dhamaystiro maxaa laga rabaa haddii wadadan lagu furo lagu dhaho inta nova inta laga soo galaa inaad adiga xarumaheeda kale taaqasi kartid ama meesha aad uga baahatid aad tagi kartid marka ustaad waxaan idinku dhiirigelinaa 100% dadaal waa samayseen waa idinku amaana waa idinku dhiirigelinaa 100% waxaan leeyahay dadaalkii waalidkiina ay idinkaga baahdeen juhdigii waalidkiina ay idinku bixiyeen waa ka dhabeyseen wajiyadan quruxda badan aad ka macnaha u soo labistay laga dareemi karo maanta farxadooda inay tahay maanta maalintooda inaan u nuurin ay tahay waa samayseen laakiin waxaan idinkaga baahan yahay cilmigaas aad barateen inaynan ka dhigin hal bacaal lagu lisay oo aad tallaab usii qaataan number 1 ustaadi wax kale inkuma dhiirigelinaa annaga hore waxaan oo sii qaadi karaa daana bahdimada kuwada midaysannahay dalad walba waa maqashiin dalada hebel waa saas waa Soomaal annaga bahdihimadaan ku jirnaa bahdihimadna haddaan ku jirno waxaa laga maarmaan ah muhiim ah ardayga himad ka mid ah in maxaa la yiraahdaa haddii uu hadda rajeynayo inuu saacadaas iskaga baxo oo ah cilmiga uu bartay oo kombiyuutarka ama graphic design-ka inuu saacadan uusan ka bixin una dhamaystiro hadduu rabbi idmo ugu dambeyntii waxaa mikrofoonka muuqaalbaahiyaha SBTV la dhex qaadnay qalinjabiyaashan qaar ka mid ah kuwaasoo wax ka weydiinay dareenkooda iyo guusha maanta ay gaareen siday u arkaan waxayna fariin u direen jiilka Soomaaliyeed ee la dhibaatoonaya fursad yarida shaqo waxaan bartay maadada kombiyuutarka waxaan baranayaa muddo 6 bilood wallahi maanta ku biiray maanta farq weyn ayaa noo dhaxeeyo waayo maalintaas qof waxaan ahay oo aan xirfad online kombiyuutarna aan ba ka haysanba wax hadda oo aragti aan ka haysan alxamdulillah maanta waxaan ahay qof kombiyuutar isticmaali karo wax uu yahay yaqaan marka aadan ugu faraxsanahay maanta inaan u taaganahay xafladda qalinjibinta aad iyo aad muhiim ay u tahay qof walibana waxay ku xiran tahay xirfadda uu bartay sida uu uga faa'iideysto marka suuqa shaqo la'aan ma jirto balse dhalinyarada ayaa isdhiga dareenkii aad iyo aad uma soo koobi karo runtii maxaa baratay waxaan bartay xirfadda kombiyuutarka bartay kombiyuutarka meeqa bilooda baranaysa marka ilaa 6 bilooda baranaya sakariye maalinta ku biiray himad iyo maanta farqi nooc u dhaxeeyo farqi aad iyo aad weyn baa hor dhaxay sababtoo ah markaas waxa ahaa mid aan
xirfadan oo aad iyo aad u aqoonin inuu barto computerka dhaqaajiyo kale sida loo daray loo daba maybe in aqaan laga yaabo laakiin inaan sii dhexgalo si wadwado meel kale wall iyo alaabtaas dhexgalo in aad u aqaan ma ahayn wata inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka caawiyaan shaqo la'aan dalka ka jirta adi ahaantaan isleedahay xirfadahan barateen suuqa shaqada muhiim u tahay muhiim jiddan u tahay waliba xitaa marka xirfadan aan biloobay waxay ii suurta gashay in aan online ka sii raadiyo xirfooyin kale oo si barto oo igu dhalisay dareenkaas waantiina waxaan rabaa inaan ka mid dhaliyo meel dheer meel sare ka gaarto والله عادي عادي درينكي عادي وكعسين درين فرحة له ما دام هم الأكاديمية ما أنت قلنا جبنا حفلة يسعته مركا وكاس. واتاي محبرة عليه. محبرة يعني كمبيوتر يا جرافيك ديزاين كورس كمبيوتر عبرت. واتاي. أنت بدل النيرة الصومالية عقبات أنك الشقة هيستو. اللي أنت هذا حرفها أنا عبرتي مثلاً سوق الشقة مهم أوتاي وكذا حمالين كرتاي. ها وكذا حمالين كرتاي صوته هذا حلق اللي جوه حلو معناها دونك كشقة حرفة محاتق أنا فورمال إديوكيشن أو أبرتيد wax faa'iido ma soo sameynaysaa leeyahay oo qof walba xirfada bartamaada wax lagu shaqeysto xirfad bari kama laha maanas maxaa taqaano shaqo lagu siiya marka inaad dhigi karta waxaas aqaano shaqaas qaban karaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa dhihi lahaa xirfad hala barto formal education asayta yaa la baran madhahay hala barto laakiin muhiimadda xooga hala saar xirfad in la barto qofkii xirfad leeyahay muhiim ah marka haddii xirfad la barto waxa leedahay suuqa shaqada waa laga xamaalan karaa shaqo la'aantana xalay u noqonaysa صح وهذا إن كتر دنيا راح ولا سومالي شقة متهال أنت متهال هذا اللي شقة كسينا محط قانا وهذا ما أنت أده محشقة كشقينا وهذا ما أنت حرفض عليها ويقانا مش شيء ساس ولا وكلها ودنك شغل أنا جفته لكن قف كلها محط قانا ما تشغل وقوسنا دور حرفضها ساقانا وكفاية ذكرى ولا حرفض الضوبة. طيب فرينتا درس نهايتها. أنا حرفض لبرتو. يعني هذا عصر حرفضه كل سنة تاي حرفض كمبيوتر جرافيك ديزاين حرفضها ومهم سنة الفواركس يحسن أبرتين. حندريمي فرحت أد وماركسن ما شاء الله. طيب أحمد لو محبرة تعليم. محبرتي يعني حرفض لي كمبيوتر. طيب. ما شاء الله مركي أكو سبيراي. وحصل لي هاي بخف ما بهم. واتي. هذا غفة. هذا غفة ما شاء الله. عصبتها وحبرتي. قاب كل وش قست أونلاين كا. عرفت كمبيوتر كا. الدون كا وحكي قصة هاي عرفت هذا كيسين هذا رحمتي. أنت ما لي وين يقدر أنت هاي waxaan joogaa xalfadii aan ku qalin jabi aan ku qalin bedelinay wata maxabarta waxa bartay qaybaha kala duwan ee computerka sida wordka excelka iyo accesska wata maalinta aad ku biiraysa himad iyo maanta oo aad ka aflaxayso bal dadka ku daawanaya aniga sawir waxa naga siisaa farqiga idin dhaxay maalinta bilaaba aad iyo aad u kala duwan tahay waxa aad maanta marka waxa leedahay waa ka duwanay maalmihi aad iyo aad u leeyahay wata xirfadan aad baratay suuqa shaqada muhiimad intee leeyahay u leedahay muhiimad aad iyo aad u leedahay maadaama dunyada hadda si hormarayso teknolojiyad ku sii tilaabsanayso marka sii dambayso qofana xirfad leeyahay wax ka matalayo dunyada wata gudahaan daawadalinta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada iyo aqoonkaal oo aad ka daawataan shaashada muuqaalbaahiyaha SBTV tan iyo kulanti dambe amaana Allah